filimkeenan maanta waxa uu ku bilaamayaa Mike oo ku jira qolka dambi baadhista. Nin ayaa ugu soo galay qolka, halka uu ninka kalena qolka dibadiisa ka daawanayo. Mike waxa uu soo xasuustay wixii ku dhacay maalmihii la soo dhaafay, sida qaada dhiig leh, digsi iyo weliba baaskoolad. 3 maalmood ka hor, Mike waxa uu si nabad ah ugu noolaa Lemon, West Virginia, isaga iyo saaxiibtiis Phoebe. Mike ayaa u qorsheeyay safar lama filaan ah oo ay labadooduba ku tegayaan Hawaii, halkaas uu doonayay inuu guur kaga dalbado. Laakiin waxa ka tegay duulimaadkoodii, sababta oo ah waxa ku dhacay argagax xilliga uu ku jiray musqusha. Mike waxa uu Phoebe ka codsaday inay iska cafiso, wayna ka ogolaatay. Waxa uu ku soo noqday shaqadiisii, maadaama uu aan aad wax looga iibsanayn. waxa uu waqtiga isku dhaafiyay isagoo sawiraya kartoon. Muuqaalku waxa uu dib inoogu celinaya xarunta CIA-da, gaar ahaan xafiiska Victoria. Waxayna akhrinaysaa faylal qarsoodiya si waxa si kadisa ugu soo gelaya kaaliyaheedii hore ee Betty. Markaas waxa laga soo wacay taleefan iyadoo uu lagu yidhi ninka xooga weyni waxa uu baarayaa ninka yar si uu u dilo. waxayna si dhaqsaa waaday wakiil kale iyadoo aad u xanaaqsan, maadaama ay labadooduba og yihiin intani ay ku lug leedahay Mike inuu la shaqeeyo barnaamijka Altara. wakiilkuna waxa uu amar ku bixiyay in la dilo. waqtiga Mike iyo Phoebe waxay wada joogeen meel u dhow wado, halkaas oo ay ku arkeen baabuurka booliiska iyo wiish qaadaya baabuur ku dhacay geed. maalinkii xigtay Mike waxa uu la kulmay saaxiibkii si uu helo rash, si uu adeegsado habeenka faraantigeliska. habeenkii Victoria waxay u soo dhawaatay Mike iyadoo ku hadashay weedho aanu fahmayn, iyadoo intaa kadib iskaga tagtay. muddo kadib Mike waxa uu dibadda u soo baxay si uu u cabo sigaar, laakiin si kadisa ayaa uu arkaya 2 nin oo taayirada gaadhigiisa wax ku dhajinaya. wuuna u yeedhay, laakiin iyagoo mindiya wata ayaa ay soo weerareen. Mike-na si kadisa ayaa uu hal mar maraq kulul ugu shubay ninka. ka hor inta uusan labadooduba hubka ka qaadin, ayaa uu ninka kalena qoorta ka geliyay qaado, kadibna waa uu toogtay labadoodiiba. waxa uu markiiba la hadlay Phoebe iyadoo si dhaqso ah goobta ku timi oo aragtay nimanka dhintay. se muddo yar kadib, labadooduba waxa gacanta ku dhigay booliiska, laakiin wakiilkii CIA-da ayaa la yaabay waxa dhacay, isagoo ogaaday in koodkii Victoria ku akhriday in loogu talagalay in lagu kiciyo dhaqdhaqaaqa maskaxda Mike. wakiilku waxa uu xil saaray 2 ka mid ah askartiisa inay gacanta ku soo dhigaan Mike iyo Phoebe, isagoo wakiilkuna ku amray in bandow la saaro magaalka oo dhan. waxaanay markiiba 2 wakiil bilaabeen inay weeraraan saldhigga bilayska, iyagoo rasaas ku furay oo dilay askartii joogtay, halka uu mid ka mid ahina uu aaday si uu u dilo Mike. laakiin Mike iyo Phoebe waxa uu suurta gashay inay xidhaan wakiilka, iyagoo awooday inay ka soo baxaan saldhigga. laakiin wakiilkii kale ayaa u yeedhay Mike, waxa uuna ku soo tuuray bam. inta aanay qarxin ayaa uu dib ugu celiyay isagoo qarxinaya, kadibna ku orday wakiilka kale isagoo dhowr feer ka jaray ka hor inta uusan qoorta ka jabin. Mike iyo Phoebe ayaa dib ugu soo laabtay bakhaarkoodii si ay u kaxaysteen gaadhigoodii, laakiin inta aanay fulin ayaa ay qaraxday bambadii hore loogu sii rakibay. waxaa la arkayaa gaadhi ay ka buuxaan wakiilo gaar ah oo uu ka mid yahay Laveve, kaas oo ka badbaaday qaraxii ka dhacay saldhigga. taliyahooda ayaa go'aansaday inuu isticmaalay isaga iyo dhowr qof oo kale khaarijinta Mike. dhanka kale Mike iyo Phoebe waxay aadeen guriga Rose, halkaas oo ay ku gaban karaan, laakiin Rose waa ay ka shakiday markii ay aragtay, sababta oo ah waxa warka laga sheegay inay qabaan fayras khatar ah, waxaana waajib ah in la qabto. taasina waa sababta magaaladu bandowga loo saaray. waqtigaasi Victoria waxay soo gaadhay saldhigga, waxayna aragtay meydka wakiilkii dhintay, iyadoo markiiba la xidhiidhay Betty oo weydiisatay garab. waxa uu soo diray sanduuq ay ku jiraan qoryo iyo faylal ay ku yaalaan wakiilada gaarka ah. Victoria waxay garwaaqsatay
inuu wakiilka CIA-du uu isticmaalayo dadka qaba dhibaatooyinka dhimirka barnaamijkiisa. Waxay la hadashay Betty oo u sheegay inuusan caawin karin sababtoo ah waxaa loo sheegay inay samaynayso khiyaano qaran. Dhowr qof ayaa u soo dhacay guriga Rose waxayna ku faafiyeen gaasta sunta ah, waxayna laayeen dhalintii guriga joogtay halka Mike iyo Phoebe ay ku jiraan qolka ku xiga. Phoebe waxay isku dayday inay ka baxdo saqafka sare laakiin waa uu la soo dumay. Markii mid ka mid ah wakiilada uu weeraray Mike waxa uu neefsaday gaaska laakiin waxa uu ka qaaday maskarada wakiilka isagoo siiyay Phoebe. Mike waxa uu dilayay wakiilada mid ka mid ah laakiin gaasta sunta ahaa ayaa si tartiib ah u neefsaday. waa uu miyir doorsan laakiin Phoebe ayaa dibadda uga soo saartay sunta waxa ayna ku muddo irbad. waxa uuna dareemay hurdo laakiin Phoebe waxa ay u sheegtay inuu dhimanayo haddii uu seexdo. laakiin waxa uu weydiiyay Phoebe sida ay ku ogaatay waxa ay gaastani tahay. markaas ayaa qiratay inay tahay wakiil ka tirsan CIA-da way ula socotay 5 sano ee la soo dhaafay si ay u xanaanayso. waxa uu Mike ogaaday in ay khiyaamtay. waxa uu dib ugu laabtay gaadhigeedii iyadoo ka daba timi ayaa uu jiiri gaadhay gaashaamo isagoo gaadhigii Mike ka tuuray bridge-ka. waxaana gaadhiga gaashaaman ka soo degay wakiil ka tirsan CIA-da isagoo meesha ka fogeeyay Phoebe oo gaas ku shubay dhammaan gaadhigii. laakiin waxa si kadisa meesha ku timi Victoria iyadoo badbaadisay Meg. wakiilkiina waxa uu Phoebe dib ugu celiyay CIA-da. Victoria waxay u qaaday Meg meel labdood oo u sheegtay in isagoo ay dadiisu yar tahay uu si mutadacwaanimo leh ugu shaqayn jiray barnaamijka Altara. kadib markii ay mashaakil la dhaceen ayaa ay xasuustiisii masaxeen. waxa ay ku mudeen irbad ka hor istaagaysa inuu magaalada ka baxo. waxa ay qabteen guriga Meg halkaas oo ay si kaysa 3 wakiil uga soo baxeen iyagoo markiiba rasaas ku bilaabay Meg. isla waqtigaas CIA-du waxay amar ku bixisay in loo diro diyaarado bilaa duuliye ah si ay u taqeeyaan guriga Meg. isla waqtigaas Victoria waxay dishay mid ka mid ah wakiiladii sirdoonka. dhanka kale Meg waxa uu u dhameeyay labadii harsanaa. sidoo kale CIA-du waxay joojisay weerarkii diyaaradaha droonta ahaa ee ku qaadayeen guriga Meg. kadib waxa uu wacay Raymond oo ahaa ninkii bilowga filimka dusha ka ilaalinayay Mike. waxa uu la xidhiidhay qaar ka mid ah taliyayaasha CIA-da waxayna isku waafaqeen inay dib ugu soo celiyaan Phoebe. waxayna ku ballameen inay ku kulmaan supermarket-kii uu ka shaqayn jiray. taliyuhu waxa uu sii kaxaystay ciidamo fara badan. waxa uu keenay Phoebe oo ay la socdaan ciidamo dilaayaal ah. Mike waxa uu isticmaalay rashka markii ay doonayeen inay galaan supermarket-ka. waxa uu awooday Mike inuu dilo dhammaan ciidamadii dilaayada ahaa halka uu taliyuhu ka haystay Phoebe. isla markiiba waxay iska furtay katiinadii ku xidhnay waxayna ka jartay feer dumar. waxaanay qabatay Victoria iyadoo ku sigatay in ay naqaska ku dhajiso oo ay disho. dhanka kale Mike waxa uu isku dayay inuu dilo wakiilkii bilowga filimka jeelka ku soo weeraray laakiin waa uu ka cudur daartay isagoo sheegay inaanu xakameyn karin naftiisa. Mike-na waa uu iska daayay. intaa kadib waxay sahlay Phoebe iyo Mike waxayna u soo bixeen dibadda waxayna arkeen booliiska oo ku hareeraysan. Mike ayaa ka faa'iideystay fursaddan si uu guur uga dalbaday Phoebe. Phoebe-na waa ay ka ogolaatay laakiin waqtigaasi ayaa ay labadooduba dhulka ku dhaceen waana ay miyir doorsameen. Carter oo ah taliyayaasha sare ee CIA-du waxa uu kaxeeyay taliyihii weeraray Mike iyo Victoria isagoo geeyay kaynta. waxa uuna ku canaantay dib u soo kicinta Mike isagoo toogtay taliyihii ka hooseeyay kuna sigtay inuu raaciyo Victoria ilaa ay ka dhaadhicisay in Mike uu yahay mid awood badan kana caawin kara hawlgalladooda. 6 bilood kadib Mike iyo Phoebe waxa ay ku sugan yihiin Philippines. waxa uu Mike ka yara dhaqaaqay Phoebe waxayna eegtay kamarad taas oo ay Victoria iyo wakiilada CIA-du ka daawanayeen iyaga. Mike ayaa wiishka soo galay waxaana afduubtay 2 burcad ah oo ay u Victoria. gangsterkii ugu weynaa waxa uu u hanjabay Mike laakiin Mike waxa uu markiiba arkay agab uu adeegsan karo dagaalka waana uu dilay dhammaan burcadii. magaca filimkuna waa American Altara
waxa uuna soo baxay 2015.